soo dhawaada. Maanta waxaan sameysanaynaa cabitaano fudud oo nafaqo ku habboon qabowga kuleylka. Haddaba waxay ka kooban yihiin wax iisiya oo aan waqti ka qaadanayn maadaama rabadaanku bil cibaado yahay. 1 daqiiqo ku sameyso. Aan fiidiyogeena gudagalno. Bismillaah. Allahumma salli calaa sayyidina Maxamed. Asxaabta waxa koobaad oo uu ka kooban yahay cabitaankeena baraf soo qaadanay. Cabitaankan qabowgu aad ugu fiican yahay waana nafaqo asaga dhan. Mooska aad iyo aad ayuu u fiican yahay laakiin dhibkiisa waxa waaye waxyaabo nafaqa ayaan ku dareynaa. Asxaabta iron ayaa mooska ka buuxa, sidaa daraadeed kuma joogayo. Waa inaa markaa sameysid baa cabtid maadaama aad sooman tahay. Waxaa fiican afurka kadib markay tahay inaa sameysatid oo horey ka cabtid, ama afurka marka la galayo inaa sameysatid waayo 5 daqiiqo xataa ma gaarayo, laakiin asaga dhan nafaqo waaye. Asxaabta fiidiyowga like dhahaya, wax yar sokor ku daraya, malab ma lagu dari karo. Qof sokor qabana maba u fiicna mooska. Asxaabta caanaan ku dareynaa nafaqo. Hadda cabitaankan best way u sameysan kartid moos waa saan ugu macaan nafaqo. Hadda baratid weligaa ma daynaysid. Waa soo shiideynaa. Asxaabta fiidiyowga like dhahaya, sii share gareeya, page-kana follow dhahaya, fiidiyowga commenti ka buuxiya waxa aad jeceshihiin oo cuntada noocyada ka heshaana commentiga igu dhaafa. waa soo gelinaa insha Allah. Hadda diyaar cabitaankan culays macaan waa ka heli doontaan. Asxaabta 5 cabitaan oo aad helto ana fiidiyowgii hore ayaan soo geliyay. haddii aad daawan kan hoostiisa ku dhigaya waa arki kartaa. Hadda kan diyaar cabitaanka labaad ayaan galeynaa. Asxaabta kan strawberry waaye. Strawberry-ga aad ay ugu macaan tahay haddaan ku darno waxyaabaha soo socda, laakiin waa iska dhaqeysaa. Milaxa liin dhanaanta haddaa haysatid waa ku dhaqeysaa, haddii kale khal iyo biyo in yar ku radine si fiican waa inaa isaga dhaqdid. nafaqo waaye. hooyada xaamilka way u fiican tahay, dadka dhanna way u fiican tahay. waxaan ku dareynaa moos strawberry yogurt way isku macaan yihiin. moos strawberry caano way isku macaan yihiin. runtii cabitaanadan waa easy. kasoo qaad strawberry ma haysatid, cabitaankii hore sameyso. asxaabta waxaa jira dadka waxay cabaan marka ay kuleylka tahay wax qabow. waxaa fiican marka aad kuleylka tahay inaa wax kulul cabtid, marka qabowgana aad wax qabow cabtid. runtii saas ayaa sax ah, laakiin mooska galkiisa ha tuurin. saa isu mari jirka quruxu kaaga dhiga, gacmaha ku dhalaalinaya. caanaan ku dareynaa. caano strawberry moos cabitaan aad u macaan waaye. asaga hal saac camal wuu ku joogi karaa, laakiin asxaabta wax kastoo moos lagu daro oo cabitaan wax badan ma joogi karo. in yar sokor ku dareynaa. asxaabta sokorta badan kheyr ma lahan. qof sokor qaba haddaa u sameynaysid waxaa fiican strawberry bas inaa u shiidid. hadda waa soo shiidaa. asxaabta asagana kana daqiiqadu ka qaatay, kii hore 1 daqiiqo. wax iisiya sameyso ramadaanka. asxaabta hadda diyaar ayuu saan yahay. weelkiisaba ku caweysaa. diyaar. labadan cabitaan nafaqo waaye. iron ayaa ka buuxda, calcium ayaa ka buuxa, caano ayaan ku darnay, nafaqo, fiitamiino. strawberry-ga iyada dhan nafaqo socota waaye. asxaabta fiidiyowga like dhahaya, sii share gareeya, commenti ka buuxiya. aad iyo aad ayuu u macaan yahay cabitaanka mooska. labada cabitaan ba aad ayay u macaan yihiin. asxaabta qaaliga intaa ayaan jeclaystay inaan idinla waraago. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.